Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi iyo sidoo kaleeto arrin murugo leh aan rabnaa inaan nugula wadaagno wiil dhalinyaro ah ahaa samafale isla markaana ahaa majaajilayste aad looga garan og yahay magaalada Muqdisho iyo sidoo kaleeto dhammaanba xeebta Liido ayaa haatan waxaa la sheegayaa in lagu dilay magaalada Muqdisho. Arrintaasi ayaan rabnaa inaan inala wadaagno bal wixii taariikh nololeed aan ka hayno iyo sidoo kaleeto ninkaasi kumu ahaa iyo waxyaabihii haatan ka dambeeyey in la dilo iyo sidoo kaleeto xaaladda haatan meesha ay ku dambayso. Barnaamijka waxay ugu heliyo saaxiibka Ilays waxaa haatan ina soo gaadhay geerida Allah u naxariistee atooraha badda oo ahaa nin majaajilaysta isla markaana maalmihii ugu dambeysay ahaa ama ku howlanaa in uu noqday samafale caawiyo dadka tabarta yar iyo sidoo kaleeto caruurta darbijiifka bal arrintan waxaad ku ogtahay ninkaasi waxaa dilay iyo sidoo kaleeto xaaladda haatan meesha ay marayso. niyow ugu horeyn horta aad baad u mahadsan tahay dhammaan daawadayaashana qiimaha badan ee halkan ku xiranna waan uga mahadcelinaa sida wanaagsan ay mar walba inoogu xiran yihiin. Atooraha badda waxaa loo yaqaanay nin dhalinyaro ahaa isla markaana samafale ahaa, magaciisa saddexaadna waxaa la oran jiray Cismaan Salaad Daahir, wuxuuna magaalada Muqdisho ka ahaa nin caan ah ama dhalinyaradu ay inta badan wada garanayaan. Wiilkan ayaa waxa uu caan ku ahaa sida magaciisaba ka muuqata atooraha badda, wuxuuna ahaa nin dhalinyaro ah oo xeebta maalmaha jimcada ama maalmaha fasaxa ah dhalinyarada iyo dadka halkaasi u soo damaasha taga ku madadaaliya ayuu ahaan jiray. Balse waayadii dambe waxa uu ahaa nin samafale ahaa isla markaana dadka tabaalaysan aad ugu caawin jiray una samafali jiray. Waqtiga la dilay wax yar ka hor waxa uu ku hoolanaa ama wuxuu meel isku keenay ugu yaraan 50 haween ah oo uu halkaasi afur ugu sameynayay, afur cunto uu soo diyaari ayuu halkaasi ugu qaybinayay. Sababta loo dilay iyo cidda dishayna ilaa hadda lama garanayo, balse waxaa hal mar uun baraha bulshada qabsatay tacsidiisa, waxaana la rajeynayaa in dhowaan ay booliska Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigi doonaan cidda ka dambaysa dilkiisa. Haddii aan u soo noqono shakhsiyadda wiilkan dhalinyarada ah, wiilkan wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada magaalada Muqdisho isla markaana wax ku baratay magaalada Muqdisho, wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaradii dhalatay wixii ka soo dambeeyay burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya. Aad baad mahadsantahay Ilays. Maalmihii ugu dambeysay ninkan waxaa tiri wuxuu ku howlanaa arrinta samafalidda. Dadka qaarna waxa ay sheegayaan inuu ka tirsanaa ciidamada booliska ama ciidamada kala duwan ee dalka Soomaaliya. Arrintaasi maxaa ka jira oo aad ka warhaysaa? Ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo in uu ninkan ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliyeed. Ninkan diriiska Soomaaliya ama ciidanka booliska Soomaaliya soo qaba waa la arkayay, balse cid xaqiijin karta in uu ka tirsan yahay biliiska ama uu ka mid ahaa ama meel uu ku tababartay cidna lama oga. Laakiinse geeridiisa dad badan bay damaqday, bulshada Soomaaliyeed meel walbay joogto dal iyo dibadba aad baa looga falceliyay. Waxaana Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryeynaa in wiilkaasi uu naxariista Rabbi u siiyo. Amiin kulligeenba. Waxaa ayadana jirto in magaalada Muqdisho haldoorkeeda iyo sidoo kaleeto dhalinyarada sidan oo kaleeta samafalka ugu howlan ama howlahan oo kaleeto iyo sidoo kaleeto majaajilaysnimada laftirkeeda qayb ka ah kooxaha argagixisada ayaa inta badan beegsada iyagoo cuskanayo qodobo kala duwan. Arrintaasina waa ay saamaysay ayaa la dhihi karaa, ama dadkani hadda burcadani dishay ama dadkan haatan u geystay inay dilaan ninkan samafalaha ah waxaa laga yaabaa inay yihiin kooxaha argagixisada. Ilaa iyo haatan booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto ciidamada sirdoonka dalka Soomaaliya wax waran ay ka soo saareen oo ku saabsan cidda dishay iyo sidoo kaleeto cidda ka dambayso in dilka loo geysto samafalahani. Niyahow baryahan dambe waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay dilalka qorshaysan ama dilalka cidda geysatay aan la garanaynin. waxaad arkaysaa qof la dilayaa, waxaa loo leeyahay dablay hubaysan oo heebtooda la garanaynin baa qofkan dishay, isla markaana goobtii ay ku dileen ay ka baxsadeen. Marka dilalka noocaasi ah waxaad moodaa magaalada Muqdisho inay aad ugu soo bateen ugu yaraan dhowrkii sano u dambeeyay ama 5 sano ama 10 sano u dambeeyayba arrintaasi way ka jirtay. Dadkana waxaad moodaa in ay la qabsadeen wax caadi ah
ay la noqotay in qof intii la dilo la yiraahdo cidii dishay lama garanayo. Hadda wiilkan lama garanayo, waxaa kasii horeysay oo isla ramadaanka dhexdiisa la dilay abwaan bedel jaamac cirsi oo ognahay inuu ahaa nin afmaal ah oo ku caan ahaa hadaladiisa iyo runka sheegidda xaqiiqooyinka markaasi jira. asna isagoo oo soo afray oo masaajid ka soo baxay ay niman hubeysan toogteen, sababta ay u dileen iyo waxa ay u dileenna ilaa ay hadda lama garanayo. balse asna wiilkani arrintaas oo kale unbuu la mid tahay, waxaana la rajaynayaa in dhowaan ciddii ka dambeysay iyana ay baaritaan ku sameeyaan sida ay bedel jaamacba ay ugu sameynayaan baaritaan. ilaysow abwaan bedel waxaa uu eersaday ayaa la leeyahay taageeridii iyo sidoo kaleeto hadalladii uu ka hadlayay inta badan uu ku taageerayay villa Soomaaliya sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya asagoo marar badanna abaabulay mudaharaadyo lagu taageerayo dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrintaasina markii dambe haatan kiiskiisa waxaa la sheegayaa in ay lagu hala gashay mucaaradka oo ayagu inta badan yacni isku hayb ay yihiin ninka la dilay abwaan bedela kama aysan hadlin ayaa leeyahay mucaaradku ilaa iyo xilligana meena arkin meel mucaaradka ragga ugu sarsareeyay ay uga tacsiinayaan abwaan bedel geerida ku timid iyo sidoo kale ciida dishay ayuu ka tacsiinay ama ka hadlay. ayagoon ognahay inay ka hadlayeen dad aad u tiro badan oo lagu dilay magaalada Muqdisho iyo ka baxeeda iyo sidoo kale meelo kale oo Soomaaliya ka tirsan. arrintaasi waxa ay si cad ugu cadahay in ay ka dambeeyeen mucaaradka ayay sheegeen faamilka abwaan bedel. ilaa iyo xilligan hay'adaha sirdoonka ee dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa CID-da wax wara oo ay ka soo saareen ma jirta arrinta abwaan bedel. arrinta abwaan bedel baaritaan baa socda. gudoomiyaha degmada Kaxda wuxuu sheegay in ay hayaan cadeymo ku saabsan ama cadeymo muujinaya dadkii ka dambeeyay dilka abwaanka, waxaana la filayaa in ay ku raajoogaan. sidoo kale sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA ayaa iyana baaritaan lixaad la wada oo arrintan ku saabsan. waxaan rajaynayaa in dhowaan la soo horgeeyo cadaaladda dadkii ka dambeeyay ama u geystay dilka arxandarrada abwaanka. haddii aan fiirino dilka abwaanka ama sida labadan dil hadda waxa iskaga eg yihiin, waa atooraha badda iyo abwaanka labaduba Allah u naxariistay, labaduba dadkii dilay goobta ay ka baxsadeen lamana garanayo, halkaas oo kaliya iska eg yihiin. balse dilka abwaanka siyaabo kala duwan baa loo fasiri karaa. midowga musharaxiinta ama mucaaradka Soomaaliya waa lagu eedeeyay oo dadka intooda badan way ku eedeeyeen. sababta ay ugu eedeeyeen waxay tahay in uu ahaa nin hadalladiisa inta badan ay ku tognaayeen in raggaas uu kaga hadlo iyo hadafkooda iyo siyaasadooda. sidaas darteed ayaa loo aanaynayaa. sidoo kale markii ninkan la dilay kama aysan hadlin, mana aysan soo tacsiyeyn. waxaa kaliya ka tacsiyey xasan cali khayre. sidoo kale villa Soomaaliya ayaa iyana ka tacsiyeysay, balse siyaasiyiinta lagu tuhmeeyey in ay wuxuun ka og yihiin ama markay ugu yar tahay inay ahaayeen in ay necab yihiin ama ay necbaayeen hadalladiisa oo geeriyooday, isla markaana saas darteed ay uga aamuseen ayaa iyana loo fasiran karaa. balse isku soo duubo wiilkan dhalinyarada ah ee caawa la dilay, waxaad moodaa in bulshada Soomaaliyeed haldoorkeedii iyo indhaheedii iyo dadka bulshada dadka wax taraya in la rabo in Soomaalida dhexdeeda laga dhameeyo oo lagu soo reebo dad makasa oo wax magarata ah oo waxba kala garanaynin oo hor iyo gadaal midna aan u soconin oo wixii rabo laga samaysto. waxaa la rabaa in la laayo culimada, waxaa kaloo la rabaa in la laayo dadka indhaha u ah bulshada, dadka wax fahmaya, dadka hadli kara, dadka sax iyo khalad u kala sheegi kara bulshadan. qof alla qofkii wax wanaagsan soo gudbin kara. waxaad moodaa in la laynayo, sababta loo laynayo iyo cidda laynaysana lama garanayo. in la gartana looma baahnaba, sababtoo ah wax ka hadlaya ma jiro. 10 sano u soo dambeysay waxaan arkaynaa dhakhtar la dilayo, caalim la dilayo, siyaasi waxgal ah oo la dilayo, samafale la dilayo, wariye la dilayo, qof kasta oo abwaan la dilayo, qof kasta oo bulshadan waxtar u ah oo la dilayo. waxaadna moodaa inaysan laga hadlaynin bulshada Soomaaliyeedna. waxaad moodaa in qofaa dhintay ama qofaa la dilay, Allah u naxariisto uun la leeyahay. ilaysow aad baad mahadsan tahay. daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii koobnaa ee uga hadlaynay tacsida iyo sidoo kaleeto dhibaatada iyo beegsiga haldoorka ummadda Soomaaliyeed ee gaar ahaan magaalada Muqdisho. daawadayaal barnaamijkan kan xiga intaan ku kulmi doono waxay naga tagay sidaas iyo amaana Allah.